Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa cafis u fudisay askar ka tirsan Jubbaland oo ku sugan banaanka degmada Balad Xaawo oo gobolka Gedo. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay cafis loo fidinayo ciidamo ka tirsan Jubbaland oo ku sugan banaanka degmada Balad Xaawo oo gobolka Gedo kadib dagaal culus oo shalay ka dhacay degmadaasi. Gudoomiyaha degmada magaalada Balad Xaawo oo gobolka Gedo Mudane Sharci Cabdullaahi Keynan oo saxaafadda maanta kula hadlay magaalada ayaa markii hore tacsi u diray dhammaan ehelada askarta labadana ka geeriyootay dagaalkii ka dhacay shalay, wuxuuna sidoo kale caafimaad u rajeeyay askartii dhaawac kaga soo gaaray dagaalka intuu socday. Gudoomiyaha Sharci ayaa ugu baaqay in dowladda Kenya inay dhowrto daris wanaagga kala dhexeeya Soomaaliya, isla markaana ay gacan ka geystaan sidii hubka loo qaadi lahaa ciidamada Jubbaland loona soo celin lahaa, kuwaasi oo sheegay in hadda ay ku sugan yihiin xadka labada dal u dhexeeya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay cafiso askarta Jubbaland ee ku sugan banaanka degmada haddii ay dowladda isu soo dhiibaan lana shaqeeyaan ciidanka dowladda, ayuu yiri gudoomiyaha. Waxaa sidoo kale baaq loo diray shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo inay ka shaqeeyaan xasiloonida deegaanka kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara qalalaase ama nabadgelyo darro. Dagaalka shalay ayaa sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana weli laga dareemayaa xaalad cabsi ay sababeen dhaqdhaqaaqyo ciidan ka socda agagaarka degmada. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin dejinta xiisadda iyo sugidda amniga guud ahaan ee gobolka Gedo. Wixii hore ku soo kordhay la soco warbaahinta Ola Media, yasan ku dhaafin.